naga harayn aan la joojin doonin. labo dagaalka haddii aan meel kasta aan laga bilaabaynin meesha uu ka socdo in laga wado. saddex waxaan la socday madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Xuseen Guudlaawe. waxaan ka imaanay magaalada Muqdisho, waxaan soo gaarnay magaalada Beledweyne. ujeedada safarkeenu waxay ahayd inaan la qaybsanno xanuunka dadweynaha gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Beledweyne oo maalmo ka hor qaraxiyo isxigay ay argagixisada iyo cadawga ummadda Soomaaliyeed ay ku xasuuqeen maanta aan wax kala iskalabsan oo fara badan hanti aad u fara badan ay ku baabi'iyeen. waxaan rabnaa inaan fariinta aan rabo halka inaan ka gaarsiiyo waxay tahay cadawgu waxa uu idila damacsanaa sida uu wax idila damacsanaa Ilaahay wax idima gaarsiinin. hal ujeedo ayuu leeyahay, waxayna tahay inuu idin xasuuqo, idin baaba'sho, idin halaago. go'aan kale idin karbaana waxay tahay intuusan idin halaagin inaad halaagtaan oo go'aankaas aad qaadataan. runtii cadawgu waxyaaba uusan malaysanaynin oo uusan ku taamaynin ayaad kula dhaqanteen oo ah weligiis rajo kama qabin ama cabsi kama qabin qabiil Soomaaliyeed in uu inta ka hor yimaado oo heeryadooda iyo gumaysiga ay ku haayaan iyo cadaawada oo ku haayaan inuu iska wajaho oo iska kor qaado heeryadooda kuma tashanin. waxaana tihiin qabiilkii ugu horreeyey ama deegaankii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed oo si muuqata dadka Soomaaliyeed dagaal waa ku jiri jireen waana la ogyahay, laakiin qolo si muuqata ula dagaalay oo dadka Soomaaliyeed toosh u daaray na muujiyey in cadawga la iska dhici karo ayaa tihiin. waan idinku habaleynayaa, inta dhimanna waa sii dhammaystiri doonnaa haddii Ilaahay yidhaahdo. annagu ujeeddadeennu ma ahan inaan isdifaacno oo keliya oo aan ka saarno gobolka Hiiraan. ujeeddada aan rabno waxay tahay shabaab in Soomaaliya laga waayo. halgankaasna sidaad hormuud uga tihiin reer Hiiraan haddaad tihiin aad hormuud ugu sii ahaataan. annaga waxaan rabnaa midig kama maaranto. waxaan u baahannahay wada jir. waxaan rabnaa inaan diidno khilaaf iyo isqabqabsi. waxaan rabnaa haddaad tihiin reer Hiiraan inaad madoodaan. waxaan rabnaa haddaad tihiin Soomaali inaad madoodaan. annaga maanta culaysku waa nasaariyaha maalin dhaweed hadal aan ila ayaa si xun loo fasiray. annagu waxaan sheegay kow inaan dagaalka haddii gabar naga harayn aan la joojin doonin. labo dagaalka haddii aan meel kasta aan laga bilaabaynin meesha uu ka socdo in laga wado. saddex waxaan sheegay inaan sii wadi karin oo ay macnaheedu tahay annagu inaan dagaal ka daalnay ma ahan. waxay tahay xuduudo kale ayuu nala gelayaa oo gobolka Hiiraan markii laga baxo xuduudo kale ayuu gelayaa. xuduudahaas kale ma gaari karno haddii aanan laga wada shaqaynin ama dadka degan uusan nala jaan qaadin. waxaan ka wadnay intaasay aheeday. waxaan rabnaana dagaalka in la iskaga jiro ma rabna aan ku dhiig baxnee in cadawga la soo afjaro. waxaanan ku kalsoonahay dadka Soomaaliyeed baraarugii laga rabay iyo dareenkii laga rabay inay leeyihiin maantan u diyaarsan yihiin. inta dhimanna ay u diyaar garoobi doonto. gadaal lagama kala haree Soomaaliyeed kama hari doonto haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa inaan idin sheego saaxiib hadduu leeyahay dagaalkaanu waa dawladda federaalka oo hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda. saaxiibka kale baato waa saaxiibadeenna shisheeyaha oo ugu horeeyo Mareykanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya. saaxiibka saddexaad waa dawladda deegaanka ee Soomaalida ee Itoobiya oo hogaaminayo madaxweyne Cagjar. saaxiibka kaleetana waa dadweynaha. waxaan rabaa markii inaan sheego halkaan inaan hilmaami doonin laba qolo. qolada annaga u baahan na codsi u jeedinayna iska kaayna dhigatirta oo iska kaayna indhatirta oo nagu daawata culayska uu cadawgu nagu haayo. qoladaas ma hilmaami doono. iyo qolada annagoon u baahanin oo codsi u dirsanin na soo kaalmaysay oo waxna tartay. kuwaasna waxaa ugu horreeya dawladda deegaanka Soomaalida ee uu hogaaminayo Mudane Mustaf Cagjar. waana ugu mahad celinayaa sida shalay gurmadka hiili hoobaad noola soo gaartay aan maanta kaaga baahannahay. cadawgana annaga iyo idinkaba isku si ayuu noo saameynayaa. waan og tahay cadawgu meesha uu idinka soo duso oo idinka soo galo oo idinka qashqashaado ama uu rabo inuu idinka dumiyo waa deegaankeenna. meesha aan joogno aan ku celino na aan inta kale dhammaystirno. waxaan idinka rabnaa xuduud kale ma nihin marka ay timaado la dagaalanka shabaab. waxaan idinka codsanaynaa hiil iyo hooba waa idinka rabnaa. cudud militari aan idinka rabnaa. mid kastaan idinkaga baahannahay. dadka Soomaaliyeed oo kaleeto aan baaq u jeedin waxaan rabnaa inay gacan ka geystaan. ka soo qabo Puntland. Puntland waa state Soomaaliyeed oo weyn oo ciidamo aan 7,000 ama 10,000 ka yareen leh oo dhaqaale far badan soo galo oo dadka Soomaaliyeed ugu garasan ay degan yihiin uguna deeqsan ay degan yihiin. haddaysan ciidan noo keenaynin waxaan uga baahannahay xoolaan uga baahannahay ciidan aan uga baahannahay gaadiid aan uga baahannahay
wax kastoo hiiliyaho baan uga baahannahay soomaalida kaleeto nagu wareegsanna wuxuu waa nabad haddaan annagu daalno birri idinku aad daashaan oo maalin boqolo ay qabsadaan waxaas wax shaqaynaya maahan mid Soomaali anfacaysan maaha gacmo wada jiray wax ku gooyaan cadowgu maanta uu nugul yahay maanta aan isla wada dilno si uusan qofba maalin u dilin